إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. جزاك الله خيرا. ما شاء الله، جزاك الله الخير شيخ معلم عبد الناصر. aayadaha qur-aanka kariimka ee uu noo akhriyey ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu innagana inagu anfaco, isagana uu miisaanka xasanaadka ha u saaro. runtii waanta waa fursad fiican weeyaan. marka koowaad waxaan idinka mahad celinaynaa inaad wakhtigiina qaaliga ah aad soo hurteen dhammaantiinba. waa annual reportkii sanadlaha ahaa ee mashruuca qoris. caawana insha allahu tacaala waan ku kala bogan doonaa warbixintiisa oo dhammaystiran iyo kabtu ka soo bilowday, meesha uu marayo iyo hadafka laga leeyahay iyo meesha uu insha allahu tacaala tegi doonaba. waxaa jira dhakaatiro iyo culimo booqatay deegaanka. sanadkan uu ka duwan yahay sanadadii hore, waa sanadkiisii saddexaad annual reportkiisii aan samaynayno. kuwii hore inta badan mid guduhu ka dhacay, midna informationkii bilowgiisii iyo waxaas waa kan. laakiin insha allah isagoo waxbarashadii socoto iyo achievementkii la gaadhay baa insha allahu tacaala oo life aan insha allah tacaala aynu wada daawan doonaa, arki doonaa. waxaan rabaa marka inaan insha allahu tacaala marka hore u yeedho. waxayna la joogta culimo badan baa inala joogta insha allahu tacaala, kama wada gaari doono, laakiin bal dad culimo ah baa inala jooga. inaguna dad muslimiin nahay, inaan kelmad baraarujin ah oo diinteenna ah aan ka dhageysano sheekheenna sheekh cabdullaahi ibraahim. هل يسألوا الشيخ عبد الله إبراهيم فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي بمهد dadka ka soo qayb galay xafladan lagu taageerayo waxbarashada dowladda deegaanka Soomaalida, gaar ahaan iskuulada Qabri Dahar. dadka ka soo qayb galay aad bay u mahadsan yihiin. waynu ognahay waqtigu waa qaali, inuu qofku waqtigiisa soo huro si uu mashruuc khayriya uga qayb qaato. wax dadka laga wada helo ma aha, waa guul weyn weeye, fursadna waa inoo tahay dhammaanteen. waxaa kaloo mahad leh oonu mahad celinaynaa walaalaha mashruucan qoris muddada dheer ku howlanaa, oon ogeyn halkii geediga laga soo bilaabay iyo meesha xaalku hadda maraya intaba. runtii rag iyo dumarba intii mashruucan qaybta ka qaadatay, maamulaysay, wax ku baxsatay, aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. wacdi iyo waana waxa inoogu filan qaarigeenna sheekh cabdinaasir khayr allaha siiyo aayadihii uu akhriyey. meel lagaga noqonayaa ma jirto. suurat lbaqara ilaahay caza wajal uu inoogu tilmaamayo in xoolaheenna aynu wax ka bixinno, meelaha khayrkana aynu ku bixinno. in ilaahay caza wajal uu ina farayo wanaagga iyo sadaqada, shaydaankuna uu ina farayo bakhaylnimada iyo gacan adayga. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. marka waynu ognahay, waan ka dharagsanahay nusuustu sida ay sadaqada iyo wanaagga ay leedahay. waxaa la yidhaahdaa qardiga xasanka ah in ilaahay wax la amaahayo. markuu ilaahay leeyahay man da ladii yuqridu allaha qardan xasana, yaa ilaahay wax dayminaya. waan ogsoonahay oo dee ilaahay dayn uma baahnaa, laakiin waxaa laga wadaa yaa wax hormarsanaya, yaa akoonkiisa aakhira wax gashanaya. waxay yidhahdaan culimmadu
qardiga xasanka ah ama amaahda wanaagsan ee ilaahay aad wax amaahinaysid waa midka laga helo 3 shardi kow xoolaha aad baxsanaysid inaad meel wanaagsan oo xalaala aad ka soo shaqaysay waa inay yihiin xoolo xalaala ood meel fiican ka keentay inaad meel fiican ku bixinaysid iyo niyad wanaagsan inaad ku bixinaysid inaad meel fiican xoolahan ka keentay meel fiican inaad ku bixisid iyo niyad wanaagsan inaad ku bixisid saddexdaa shardi marka la helo ayaad soo gelaysaa man dha alladii yuqridu allaha qardan xasana waxaan rajaynaynaa saddexdiiba inay caawa insha allahu tacaala ilaahay idankii ay inoo hirgelayaan waynu ogsoonnahay walaalayaal dowladdeena dowlad deegaanka soomaalida soomaali iyadoo muddo dheer qax iyo burbur iyo dhibaato ku jirtay soomaalidu waxay dhahdaa wadka waa loo siman yahay laakiin waxaraha mareegta u dheer waad maqasheen soo ma geerida waa loo siman yahay laakiin waxaraha mareegta u dheer waayo luqunta laga xidhayayo si sahlan bay isugu marayaan soomaali qaxa iyo dhibaatada way u sinayd laakiin innaga howlo aynu ognahay baa inoo sii dheeraa sidaa darteed baynu ummad aan dowlad lahayn soomaali oon dowlad lahayn soomaali oo burbursan soomaali oo qaxday soomaali oo dhibaataysan waxyaabihii ay ku guulaysteen baynu ku guulaysan kari weyn waxyaabahay qabsatay baan qabsan kari weyn inta jaamacadood iyo inta profesoro iyo inta aqoon-yahan iyo inta iskuullo iyo inta jaamacada adduunka uga aadaysa waan ogna innagana halka dadkeennii ay joogaan ummaddeennii ay taagan tahay waynu ka warhaynaa aad baynu mujtamaca soomaaliyeed dowlad deegaanka soomaalidu xagga tayada iyo waxbarashada iyo aqoonta dhinac walba ummaddeennii waynu ka hadhnay fursadda nabadda ee hadda deegaankeenii ka jirta waa waqtigii markaa aynu ka faa'iidaysan lahayn oo fursadda maanta taalla haddaynaan ka faa'iidaysanin oo inaan wax qabsanin waqti aan wax qabsan doonno garan mayno sababtoo ah in fara badan caqabaad baa jiray duruufo adag baa jiray oo nabadgelyo duruufo adag baa jiray oo dhinac walba taabanaya maanta aqoon-yahankii iyo isu socodkii iyo nabaddii intuba deegaanka way ka jirtaa waa waqtigii marka aan wax qabsan lahayn wey dadka halkan fadhiya caawa tiradu way yar tahay laakiin markay tiradu yar tahay maxaa loo baahan yahay inay tayadu badan tahay sooma tiradeennu way yar tahay laakiin tayadeennu waa inay badnaataa waxaa laga yaabaa runtiina bini aadanku uma soo degdego sida meelaha aan khayrkeedu badnayn sida loogu soo degdego ee fisqigu uu ka jiro xafladaha fisqiga lagu hayo sida loo camiro waad ka waraysan sooma ilaan reer minnesotana waynu is ognahay meelaha aan aada ilaahay loogu xusaynin ee muusiga iyo balaayadu ay ka qowleedahay caawo oo dhan waxa weeye meel la kala mari iyo meel la kala fadhiisto dadkiiba booliis baa celinaya subxaan allah meesha fisqiga lagu hayo booliiskii baa waxaa dadkii loo xidhxidhayaa warjooga iyagina waa la ka dhawaana habeen barberina shaqay leeyihin laakiin meeshii aakhare loogu dhowaanayey ee ummaddii lagu caawinayey naftu sidaa uguma soo degdegayso sababta waa midii ilaahay sheegayey ee qur-aanku inoo sheegaya meelaha khayrka lagu hayo shaydaanku dadka uu kala dagaalamaya laakiin meelaha khayrkeedu uuna badnayn waxa weye shaydaanku dadkii uu ku qalqaalinaya dabaduu ka soo maraya markaasaa meel la kala mara aan la helayn waxaynu u baahnay walaalayaal soomaalidu waxay dhahdaa geel nin la joogaa lagu galaa dee intaynana caawayna haysataa marka waa inaynaan u kala hadhin haddii ilaa yidhaahdo oo qof walba mashruuca qeybtiisa uu ka qaatay insha allahu tacaala oo ku darsado hadalka waan dheereeyay baan u malaynayaa aad iyo aad baad umahadsantihiin diyaar baynu u nahay kulligan inaan ka wada qayb